ninkan lagu magacaabo Tony Bohley ganacsado u dhashay Mareykanka ayaa iibsaday kooxda Chelsea isagoo ku iibsaday lacag gaaraysa 40 bilyan oo pound. Ninkan keligii muusan iibsan kooxda balse waxaa jiray ganacsadayaal kale oo shir ku leh balse isaga uu ah ninka ugu badan ee kooxda maamuli doona. Ganacsadahan oo iibsaday kooxda Chelsea ayaa waxa ay taasi dhameynaysaa 19 sano oo ninka lagu magacaabo Roman Abramovich oo kooxda Chelsea hoggaanka u hayay. Misleedahay ganacsadahan Ameerikaanka wuxuu la mid noqon doonaa ganacsadayaasha kale sida Arsenal iyo ganacsadayaal kale oo kooxaha horyaalada Yurub ka ciyaara haysta kuwaas oo aan aad u maalgelin naadiyadooda kadibna dhibaatooyin soo food saara. Misleedahay Chelsea waxay u darsan doontaa Roman Abramovich kaasoo si toos ah u maalgelin jiray ciyaartooydana soo iibin jiray. sidoo kale page-ka ay Chelsea ku leedahay website-keeda ayaa lagu cadeeyay in la iibsaday kooxda ay iibsadeen ninka ay soo sheegnay Mareykanka ah iyo ganacsadayaal kale oo shiraako kula ahaa. lacagta lagu qoray page-ka Chelsea waa 2.5 bilyan oo pound taas oo dawladda laga sugayo Ingiriiska inay approve gareyso. waxaa la sheegay lacagtaasi inay 100% wixii faa'iido ah ay aadi doonaan qaab donation ah qaabkaasi oo mataqaana lagu sadaqeyn doono dadka masaakiinta ay halakiyeen dagaalada iyo cudurrada jira xilligan. arintani haday suurta gasho oo kooxda Chelsea la wareego waxa fududaanaysa Chelsea in laga qaado cunaqabatayntii saarneed oo ah inaysan ciyaaryahan soo iibsan karin ciyaaryahanna aysan heshiis la saxiixan karin. waxa la ogsoon yahay ciyaartoy aad u muhiim ah Chelsea hadduu ciyaara inuu heshiiskooda dhacayo. haddii Chelsea laga qaado cunaqabataynta waxay suurtagelaysaa in ciyaartoyda heshiis la saxiixato sida Antonio Rudiger kaasoo laga yaabo inuu aado kooxda Real Madrid. Chelsea ayaa laga yaabaa xagaagan inay suuqa gasho sidoo kale ciyaartoy soo iibsato. balse haddii dawladda ay approve gareyso ama ay xaqiijin weyso ama ay fasixi weyso gadashada kooxda Chelsea waxay ku noqonaysaa dhibaato kooxda Chelsea ah inay soo iibsato ciyaartoy iyo sidoo kale in ciyaartoyda heshiiskooda dhacaya sanadkan ay heshiiska saxiixdo. isleedahay Roman Abramovich Chelsea u darsan doontaa 19 sano oo naadiga majraha u hayay. ninkan ayaa lacag badan ku qarash gareeyay Chelsea koob badan u horseeday. waxaynu ku naqaanaa ganacsadayaasha kale ee Mareykanka iyo ganacsada inta badan Yurub ka yimaada inay aad u dhib badan tahay inay naadiyada maalgeliyaan ay naadiyadana guul ka keenaan qaaradaha Yurub iyo horyaalada ay ciyaarayaan labadaba. waxaan aragnaa PSG iyo Man City iyo Chelsea waxay noqdeen naadiyo ay maalgeliyaan ganacsada ka yimaada Carabta iyo Raashiyaanka kuwaas oo horumar ka sameeyay kubadda cagta. balse way dhib badan tahay in la arko ganacsadayaal Yurub ka yimaada iyo Mareykanka oo horumar gaarsiiya kooxaha ka ciyaara qaaradda Yurub. tusaale waxa idigu filan kooxda lagu magacaabo Newcastle oo iska iibiyay nin uu dhashay Mareykanka sidoo kale kooxda Arsenal oo majara u hayo nin Mareykan ah oo intaba lacag haysta balse aan maalgelin naadiyada ay gacanta ku hayaan.